السلام عليكم وأنهي وصل عبت مركلته ومانت روتيني فلو عصبدين وذو السود وهذا maanta waxyaabo badan isla qabanayna hoosh guriga taal dhan waa qabanayna dhara dhaqayna maanta macna kali ee joogno oo ka faa'iideysanayno waaye idinkan sidoo kale xaga u baahanay inaad fiirsataan oo subscribe saartaan comment ka soo bixisaan hore hadda noo joogtay ilaa gaxna la dhaafin haddaan ugu cusub tahana subscribe noo saar soo dhaw ka mid noqo family-gayga asxaabteyda saaxiibadeyda ka mid noqo haddii aad maxay fiidiyoyada ka hesho waxyaabo badan way iga soo codsan kartaa inaan soo sameeyo jeceshiin hadda vlog idin sii wadaay waa iisoo sheegi kartiin waxyaabo badan oo u baahantiin waa iga soo codsan kartiin ayna waa idin soo sameynaa ayna dhiirgelina ii noqonaysaa marka waa mahadsantihiin asxaabteyda qaaliga ah hataa daawashadiinana waa ku mahadsantihiin marka kaale let's go wax isla qabana hoosh isla caawino meeshaaniti waxaa ka bilaabaneynaa hoosheena dharka dhaqaynaa kadibna dooradaasi jarayna ama digaaga ama chicken-ta aad ka siisid kadib meeshaanayta bahaaraadkii dhan ku soo diyaarsanaa hatta waxa ku shubooyo waa cusbada ku shubaa kadibna waxa ku taraa doorada dhaqsam dhanan ma noqoto waa la yaabay iyada dhan jirkeeda waxa waa bibiyo meeshan xawaashidi ayo nooc xawaasha ku soo tareena kii bariiska kii pastada kii malaayga kii chicken-ka kii doorada nooc kasta waa lagu taraa fahantiin huruud ha kareebin babaas ku dar wax kasta ku dar waa furid wax ma laga tagaayo saliid waa lagu taraa si ay waxyaabaha dhan isku qabsadaan ay u noqdaan inta chicken-ka oo loo mariyo meel kasta waa ka geliyaan meel kasta waa ka mariyaa meelii aasoo duduleeliyo dhan waxa ka gelinaa waxyaabahan isku soo dadara dhanaanka soo dhexda oo kale babaaska kadibna saxankeeda ku rida saliid saxanka waxa uu marinaa markii foornada la geliyo inuu madmadow iga yeesho diidana faan saliid way ka celinay madmadowga iyo waxyaabahaas dhan ay ka celinay meeshaana ku soo diyaarsaday bariiskii ya karneena inta ku shubnay saliid yar ku soo shubay meesha digsiga intay si kulaanaysa basashii iyo waxyaabo yar oo bahaarada ku soo daray cabaar isku shiileena bariiskan basmiir laha kaaliska arag asidan wuxuu noqonaa furfur idii taqaan way taqaana idii kan hadii barneen fahantay bariiska si fiican la iska dhaqo gabdho hadii kale tijeermis waa hindiyaasha markay sameynayaan maaragti korkooda hay ku dhigayay sameynayaan marka si fiican loo dhaqo si fiican 7 jeer dhaqa ku dhacay sidii oo wax ka dhaqaysto kaleeto 7 jeer iska dhaq meeshan habeen noqotay jooga dhanka la iska arag oo kala barafkii xaas qabsaday nalkiisa qurux basashiya soo guduudatay hadeertan si fiican u qaleena bariiska ku dara bariiska iyo maxay intaan isku qaleena markay qarrac dhaxdo kadib biyaha soo karkarsaday biyaha ku shubeena kadibna dabka u gaabna daboolkiisa dab ku siina oo soo noqonayna sidoo ku soo baxo bariiska ma isku dhago mana oo noqdo maxay wax asidan wuxuu noqonaa kaaliska arag oo badan oo barkood 2 koob ku shubay sidaas soo noqday feere meeshan tooradii soo sameeysan foorada way soo bislaatay kaaliska arag hadda intaan la soo gaartay waa mahadsantahay waxa ku leenahay jisaakum allah